اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan qaadanaynaa binary number iyo decimal number. waa waxyaabaha electronic khuseeya ama digitalka waxay dhahaan oo kombiyuutarada iyo ay ku shaqeeyaan. binary number se decimal number ugu bedeli kartaa binary number ama binary number aad ugu bedeli kartaa decimal number. jadwalkan waxaan rabaa inaan idinku tusiyo si fudud oo raqamyadan meesha ku qoran oo ilaa iyo 15 ah aad u qori karto binary numberkaada adigoonan wado dheer iyo wax badan iyo wareer badan u marin. saan aragna meeshan waxaa noogu qoran 1 ilaa iyo 15 0 ilaa iyo 15 oo decimal number raqamyada caadiga ay naqaano. kuwan kombiyuutarka markii aad adiga keyboardka garaacdid 0 garaacdid kombiyuutarka 0 ahaan uma qaadanayo oo uma yaqaano, laakiin wuxuu u yaqaanaa binary number. binary numberkan marka qoraynaa dariiqo fudud oo si xisaab ahaana iyo wax la isku dardaraya aad uga shaqeynin oo loo qoraa jirto oo fudud. taasaan marka bal meeshan jadwalka ku qoraynaa. saan ognahay binary numberka waa 1 iyo 0, ima inuu yahay 1 iyo ima inuu yahay 0, wax ka dhexeeya male. waa labadaas kombiyuutarka waxa dhan uu ku shaqeeyo oo waxyaabaha la qoraayo, videoyada la duubayo, wax walba wuxuu ku aqbalayo waa labadaas 1 iyo 0, 1 iyo 0, 1 iyo 0. okay, marka qaybta tiirka dhanka midig xiga waxaa ku qoraysaa mid walba ilaa raqamka ugu dambeeya aad ka gaarayso 0 aad ka bilaabaysaa. 0 ka bilaabaysaa waxaad leedahay 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. okay, safka tiirka kale ku xiga ama cunudka kale ku xiga waxaan ku qorayaa isagana kan waxaan ku qoray 0 1 0 1 0 1, waxaan ku qorayaa kan 0 0 1 1 0 0 1 1 ilaa aan ka gaarayo meesha ugu dambeyso waa 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. okay, kan kale ku xigo waxaan ku qorayaa isagana iyagoo afar afar. mid wuxuu ahaa hal hal, mar 0 mar hal, mar 0 mar hal. kan labaad wuxuu ahaa iyagoo laba laba oo 2 0 2 hal 2 0 2 hal. kan kale ku xigo waxaan ku qorayaa iyagoo afar afar. waxaan leeyahay 0 0 mar walba adi 0 ka bilaabaysa 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. okay, safka ugu dambeeya marka waxaan ku qorayaa isagoo 8 8. wuxuu noqonayaa marka 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 iyo 8 hal 1 2 3 4 5 6 7 8. sidaasaa marka waxaan ku qortay jadwalkii. haddii la yidhaahdo hadda decimal numberka 0 binary numberkiisa muxuu yahay waa 0. decimal 1ka decimal number 1 binary numberkiisa muxuu yahay haddii la yidhaho waa 1. adi mar walba waxyaabaha ziirada oo ugu dambeysa ha fiirinin, dan ha ka gelin. yacni sidan markaa u qorayso mar walba oo lagu siiyo, waan sii guda geli doonaa insha allahu inaan sii wadaan rabaa. mar walba oo aad samaynayso
binary number aad sidaan u samaynayso waxaa samaynaysaa inta lagu siiyaad qoranaysaa limitkaa qoranaysaa safka ugu horeeya ee dhanka midig xiga waxaa ka bilaabaysaa 0101 kan kale ku xiga waa 0011 haddii labadaas bas lagu siiyey intaasaa ku joojinaya haddii saddex lagu siiyey waxaad leedahay saddex tiir saddexda tiir kan koowaad waa 0101 kan ku xiga waa 00111 kan kusii xigo waa 0004 afar afar waaye kan kale kusii xigana 8 mar walba oo aad ka shaqaynayso binary number sana u qoranaysa waa arki doonaa adoo jadwalka u baahanayo jadwalkiyaa samaynaysaa geydadkiaad rabtaa inaad wax ku qorto geydadkaas mar walba oo wax ku qorayso waxay danta kugu kallifaysaa inaad jadwalkan qorato jadwalkan markaad qoranaysana waxaad ogaataa midigta tiirka ugu horeeyo xigana waa 10101 kan ku xigana waa 0011 waa laba labo kan kusii xiga afar afar kan kale waa 8 haddii kan ugu horeeya keliya lagaa rabo halkaas tiirkaas keliya ku daynaysa haddii kan laba tiir lagaa rabo waa arkayna kulan gudaha markaan gal laakiin haddaan dantan ka leeyahay waxay tahay mar walba oo aad qoraysid aad u baahatay jadwalkan oo kale inaad qortid sidaan sida fudud oo ugu boobsiiska badan ku qoro kan ugu horeeya waa hal hal mid walbaba hal ziiradana hal wankana hal kan ku xiga waa laba labo mid walba waa inuu laba laba noqdo kan kusii xiga waa afar afar kan kale ku xiga 8 marka ilaa iyo 15 decimal numbers oo ilaa iyo 15 binary numberkooda waa kuwan hadda 15 binary numberkeeda waxa waaye waa 1111 computerka marka adiga 15 ku qorto wuxuu u qoranayaa uu akhrisanayaa mashiinka ugu tarjumayaa 1111 14 na binary numberkiisa waxa waaye 1110 13 binary numberkiisa waa 1101 saas oo kulligood mid walba saasuu leeyahay okay mararka qaar waxaa lagu weydiin karaa waxaa lagu dhihi karaa waxaad sheegtaa decimal numberka ugu weyn sheeg waxaad ogaataa mar walba oo lagu weydiiyo largest decimal number qaacidadiisa aad ku soo saaraysa mar walba iska ilaali waa sidaan wuxuu la mid yahay waa baseka 2n minus 1 taxamanka waa lagu keenaa waxaa lagu dhihi karaa numberkan largest decimal numberkiisa sheeg markaasay ta baseka labaad ka dhiganaysaa ntan waxay ka dhigan tahay tusaalaha hadda kugu tusin doonaa ntan waxay ka dhigan tahay decimal numberkii lagu siiyey waad ku qoraysaa inta ku qoraysaa booska n halaadna ka jaraysaa markaas waxaad helaysaa kii ugu badnaa ee markaasayta uu lahaa bitkaas uu lahaa okay hadda mathalan waxaa la yidhi 5 bit n waxay la mid tahay 5 bit marka waxaa laga rabaa largest numberkia laga rabaa waxaan leeyahay 2 sideeda waxaa ogaataa binary number basekiisa waa labo mar walba binary number haddaad aragto basekiisa waa number basekiisa yani waa selka waxa u hooseeya waa labo okay n waxaad ku bedelaysaa 5 waxaad ka jaraysaa 1 waxay la mid tahay n markaad 2 to the 5 waxay noqonaysaa 32 laga jaray hal waa 31 largest numberka oo ugu weyn ay leedahay 5 decimal numberkaas waa 31 haddii lagu yiraahdo kale 6 number 6 n waxay la mid tahay 6 waxaad leedahay waa waxaad dhihi kartaa 2 oo uskeeda yahay 6 mar walba halaad ka jaraysa midka ugu dambeeya oo hal laga jaray waxay noqonaysaa marka waa laba oo uskeeda yahay 6 powerkeeda yahay 6 waa 64 laga jaray hal waxay la mid tahay 63 marka tan waxaad ogaataa mar walba waa markii lagu weydiiyo taxaamanka waa lagu keenaa waxaa lagu dhihi karaa waxaad sheegtaa midka ugu weyn lambarka ugu weyn mar walba adiga wixii lagu siiyey waad us ka dhiganaysaa basekana waa labo halaad ka jaraysaa qiimahaasaad marka waxaad leedahay waa largestiga okay waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego ama aan is ogeysiino binary numberka maadaama basekiisa uu laba yahay
waxaa loo qoraa sidaan. waxaa laga bilaabaa 20 21 22 23 2 to the 4 2 to the 5 2 to the 6 2 to the 7 2 to the 8. waa 8 bit markuu yahay. kambaniyaasha qaar baa ka badan isticmaalo. mararka qaar waxaa arkaysaa 2 to the 64 baad arkaysaa. hada windowyadan inta badan 64 ay kusoo baxaan. mararka qaar waxaa arkaysaa 232 baad arkaysaa. marka yacni wuu sii socon karaa ilaa iyo intii la rabo, laakiin annaga waxaan ku ekeysanaynaa ilaa iyo 8ka. okay, xisaab ahaan markaa uga shaqeysa marka mid walba oo tana muxuu noqonayaa hadda tan 2 oo powerkeeda yahay 0. 2 to the 0 maxay la mid tahay waa 1. weligaa waxaa ogaataa wax walba oo powerkiisa yahay 0 wuxuu la mid yahay 1. x haddii powerkeeda 0 waa waxay la mid tahay 1. taas ogow. mar walba wixii wax powerkiisa la yiraahdo 0 waaye waa 1. e haddaa aragto powerkeeda 0 yahay wuxuu la mid yahay 1. taas maskaxda ku hay. okay, waa 1 tan labaad. 2 haddii powerkeeda 1 la yiraahdo oo hal mar la isku dhufto muxuu noqonayaa waa un isla 2dii labadii sooma. 2 haddii 2 mar la isku dhufto maxay noqonaysaa waa 4. 2 haddii 3 mar la isku dhufto waa meeqa waa 8. 2 haddii 4 mar la isku dhufto waa meeqo waa 16. 2 haddii 5 mar la isku dhufto maxay noqonaysaa waa 32. 2 haddii 6 mar la isku dhufto waxay noqonaysaa 64. 2 haddii 7 mar la isku dhufto maxay noqonaysaa 128. 2 haddii la isku dhufto 8 mar maxay noqonaysaa waa 256. calculatorka waa ku fiirin kartaa adiga. marka waxaad ogaataa mar walba waxaa lagu dhihi karaa binary decimal number inta lagu siiyaa waxaa lagu dhihi karaa waxaad u bedeshaa binary number. haddaynan ilaa iyo 15 hadda aan soo aragnay oo sida fudud aad kusoo saaraysa aysan ahayn, waxaad samaynaysaa waa arki doonaa mithaal waa sheegi doonaa. waxaad samaynaysaa dariiqaana isticmaalaysaa markaasaad waxaad u bedelaysaa binary number. markaasaad u bedelaysaa 2 dariiqa binary numberka loogu bedelaa. iyagana waa sheegi doonaa waana arkaynaa biidni illaahi tacaala. okay, bal mithaalkan aan firino exampleka. waxaa la yidhi waxaa la rabaa inaan u bedelo 1101 101. saa u jeedno waa binary number soo maha. binary numberkan waxaa la rabaa inaan u bedelo decimal number. seen ugu bedelaya marka waxaad samaysaa horta waxaad qorataa numberka meesha lagu siiyey binary numberka 1 0 1 1 0 1 1. asaas soo maha. okay, markaad qorato waxaad ku qortaa tii hore aan usoo sheegaynay. waxaad ka bilaabaysaa mar walba 2 0 2 1 2 2 2 3 2 to the 4 2 to the 5 2 to the 6 soo ma 1 2 3 4 5 6 7 toddoba waaye kuwan laakiin waa 6 meeshan. why because inta 0 ku jirto taasaa keenaysa. mar walba iska ilaali marka lagu leeyahay largest oo decimal numberka ood ku qiimeynayso waase waxyaabahan oo kale waay. marka mar walba iska ilaali. mar walba 0 to the 0 2 to the 0 aad ka bilaabaysaa ilaa lambarkii aad gaarto. markay saan tahay ani maxaan rabaa markaan un qaadanaya waxaa qaadataa meel walba oo 1 ah. fiiri 0-inka dhan isaga tag. meel walba oo 1 ah wixii matalayay oo korkan ku yaala oo 2 to the ama powerkii ah qaado meeshii 1 ah. meeshii aan 1 ahayn shuqul kuma leh. okay, waxaan qaadanayaa kan 1 waxaan qaadanayaa kan 2 waxaan qaadanayaa kan
waxaan qaadanayaa kan, waxaan qaadanayaa kan. Kay noqonaysaa marka waa kan kow iyo kan labo iyo kan saddex iyo kan afar iyo kan shan. Shantaana ani isku dardarsanaya marka. Waxaan leeyahay marka 2 to the 6 plus 2 to the 5 plus 2 to the 3 plus 2 to the 2 plus 2 to the 0. Maxaa ii soo baxaya marka? Tan waa aragnay meeshaanay noogu qoran tahay waa 64 plus tanna waa aragnay waa 32. weligaa waxa la isku dayaa 8 bitka ugu horeysa inaad xifdiso, intaan inaad maskaxda ku hayso qiimayaashooda natiijada soo baxayso. Saasaa kuu fiican mar walba, si aad mar walba ka shaqaynaysa ay kuugu boobsiismanto. Lagu daray tan 2 to the 3 na waa 8, lagu daray 2 to the 2 na waa 4, lagu daray 2 to the 0 waa 1. Intaan markaa calculatorka qaadato ood isku soo wada dardarto maxay noqonayaan marka? Waa 109. waa 109. decimal numberka computerka 109 wuxuu u akhriyaa sidan computerka. Adi laakiin sidaana lagu siiyey, markaas waxaa la yidhi waxaad u beddeshaa number caadi ka dhig. Number caadiga markaad ka dhigayso nafsi dariiqadaanaad qaadanaysaa, markaasaa soo saaraysaa natiijadii soo saaraysaa. maanta darskan intaasaan ku ekeynaynaa, waan sii wada doonaa insha allahu. aad baad u mahadsantihiin. wixii talo iyo tusaale ah mar walba waan sheegaa, hoos iigu soo hagaajiya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.